السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوماليا وأنا سلامي meel kasta adduunka joogtaan kheyr iyo abshir iyo bashbash baan ii rajeynaya. sheelaagta subscribe-ka ha iloobin, sheelaagta subscribe-ka ha iloobina Soomaali weynay, ma garateen? sheelaagta subscribe-ka ha iloobina. horta xabsi ma la furay social media, waxaan maqlayay, waxaan arkaya laleeyahay xabsa queen waa la furay, xabsa queen waa la furay. maxaa runa maxaa beena? ma sheekadii social media habaa mise see wax u jiraan? horta markaan qoray xabsa queen, ani mershan ma jecel inaan kasoo hadlo ilaa wax hubsado. xabsa queen marka meesha ku qoray sawiradeedii iyo odaygeedii hadda wiilkii hadda guursaday kuma jiro. marka dee calafka hadduu dhammaado hal habeen baa lagu kala tagaa, taa no problem, waa la kala tegi karaa. laakiin dee Soomaali baanu nahay, warka maba daynayna, waa hadlayna. social media baan ku jirnaa, youtube viewski baan ku raadsanayna. laakiin hadal runa waa ina viewska lagu raadsadaa. daraataan arkay oo laleeyahay xabsay queen iyo ninkii way kala tageen. social mid kale haddana dhagaysta, wuxuu yidhi waa kan janalkii xabsa queen, wiilka ma sii raacin magaciisii, uu soo dhigay sida waa ka xabsa queen maxay janalkeedii, ninkeedii kuma jiro. ninka magaciisa muxuu ah? nasru muxuu magaciisa? sardudiin, magac adag buu leeyahay. sardudiin buu magaciisa. alla kullu xaal way laga saaray labadoodii, meeshay ka hadlayeen, meeshay taariikhahooda ka hadlayeen, meeshay arooskooda ka hadlayeen, meeshay waqtiga isbarteen ka hadlayeen, meeshay sheekooyinkii jaceylka adduunkii ay ka sheekeynayeen ma jiro. kowsaro halkan soo hadashayna ayadoo magac sheegin meesha waxay kusoo qortay, kor way kusoo qortay kolayba one day, waa shalay, waa la wada arkaysaan, qofkii raba uu arkay. waxay kusoo qortay kor, waxay ku qortay nin leh doqonta ufka. halkan waxay kusoo qortay naagta ninka ku waalatay lagana tagay. kowsar janaad baa kusoo qortay, haddaan rabtaan gala kowsar janaad qora oo arkaysaane. naagta ninka ku waalatay lagana tagay dhagayso. marka ayada fariin u faraysa dhagayso bay tiri. naagta ninka ku waalatay lagana tagay dhagayso. ayada marka ay leedahay dhagayso, magac may soo qaadaysa, warkeeda may soo dhigin, magaceedana ma soo dhigay bay tiri. aan dhagaysano. laakiin aan xishood lahayn. dhowr marna igu soo noqotay ilaa ay xale, ilaa ay haweenadan la weydiinayay. arrintaana mar horeba qasanta, mar hore waxba lagama qaban karo. laakiin waxaa la yidhi nin guudiga kuma dirinaada, ma fahante? tala walaalka dilna waxaa lagu taraantaroodaa. aniga trishaas mar hore u digay, magaceeda ma rabo inaan sheego, sawirkeeda ma rabo inaan isticmaalo. ayada iyo weliba ninkeeda waxaan ku dhahay wax aysan ahayn bay ismooda. tala walaalkii diidow tagoogtu ka jabaa. maamaada 100 nooc bay u kala baxdaa. tala walaalkii diidow tagoogtu ka jabaa. hayeenno wad sheekada. reer Mareykanka maxay dhahaan? xantiyo fresh, xan fresh haye. laakiin kowsar waxa ay sheegayso, inay wax ka jiraan Soomaali mar hore aragtay. wax walban waxaan ku dhahay sadar ma su'aal karan aan ku dhahay. qoftaana waxaan ku dhahay hadal karti wixii jiro runta ilaahay weyna. wajigayga waxa marsaday malo iska soo fariistay, inda kul yar, lipstick yar baa marsaday maanta. wajigayga fool xumo ka raali ahaada, wajiga foosha xun leh. isma naashnaashin. waxaan kule kowsaray aniga isku duceynayo ilaahay weyna waaxidkaa ku ammaansan walaashay macaan. isha bini'aadamka ilaaha ka haayo. quraansaarka waxaan kule waa ku qurux badnaate. way isu ducaynaysaa. waxay tiri kowsarey isha bini'aadamka allah ka haya, ayadaa isu ducaynaysaa. horta waa soo qurux badnaatay maasha allah. halkan markaan soo galo qadka
qadka albaabka markii la xiro qadka wuu tagtagaya bal inuu ii soo noqdo waxay tiri waxaa la igu yiri qoraan horta qurux bay soo noqotay mudday ka maqneed baan malay waxoogaa waqtiga ka maqneed waxay tiri ducadii waalidkay baan qaatay ummaddii waan iska daayay horta way soo qurux badnaatay waxay tiri quraan saankaa kusoo qurux badnaaday quraan baa la isoo saaray aan isla dhageysan qad mahay hadduu dem koosare xanti aawe koosare xanti waa iska dhaafta miyaa waa idin sheeg walaalayaal aniga duco waalid baan qaatay iyo talo waalid iyo talo walaal iyo talo nooc walbay noqoto baan qaatay maya horta kowsare waanada sidaa horta u hadlaysay aad bay u fiican tahay ayda xun gabadha markaa garanaysid waxay tahayna aada garanaysid ee run aada u garanaysid de ma fiicna horta publica ina lagu ceebeeyo gabdhaha taa ma fiicna telefon haddaa wax ugu hore dhawaan ka hadlay lagu sheegi kara lagu sheego hadda meesha waxayba noqotayba meesha lagu garqaadayo marka qof waaninaysa halka la imaanay marka qof wax u sheegaysa halkay noqotay inkasta fiicneen ceebaha gabdhaha in la sheego ma fiicna gabdhaha ceebtooda inaa la asturaa wanaagsan hadduu iisoo noqday qadka marna waa tagaya marna usoo noqonaya qadka bismillah laakiin qofna caaw meeshan ka macaynaya laakiin runta raba inuu sheega dariishadaas waxaad ahayd ismoodaa ku dhihi karaan fahantay dhulka cagaa horta dhulka dhig magacaaga ma sheegi rabnaayaa yasmiinta saa kuugu filan ninkan aa kula dhawaysid adduunyada dhanba asir u maraysa waxaa magaciisa yaa la soo qaaday hebel magaciisa hebelo yaa umooda muxuu yahay istir ninku ma adduunyada dhan naamida kale waxaan ku weydiinayaa baastaradie maxaan ku weydiiyey nin gabar soomaaliyeed oo walaasha ah oo asaagaaga ah ya oo quruxda qiimo intaba qof bini-aadan ka toogaynin dhulka ku jiida dhulka si kale ma ahan intuu adig ku geynaa ii sheeg ninkayga hebel magaciisa yaa la soo qaaday nin arag maa tahay qadkaa tagay ka raali ahaada usoo galay waa baxaya hadlaysa 16 daqiiqo atriishada ninka faaninayso bay tiri naa gabar hore soo xumeeyay maxay ka faanin ayada halkuu geeyni nin walaasha gabar walaasha soo xumeeyay ma ninkaa kugu cusub ma noloshaa kugu cusub adaan kula hadlaa dhagahaaga fur abaa macaanto istaqaan faham shit raali ahaada qadka tagaya intaanaan ku joojinayaa kolayba dhagaysateen ana waxaan ku dari karo soomaali weynay ayaan ku darayaa sheelaagta subscribe-ka ha iga iloobina soomaaliyay ii hagarbaxa oo sheelaagta subscribe shuruudda la igu xiro youtube-ka wax yar baa iga dhiman intaana i gaarsiiya inta isoo gaarsiiseen aan leeyahay hadda wax yar baa iga dhiman yaa isoo gaarsiiyey soomaali kheyr allahna siiyo cimrigiina allaha dheereeyo caafimaad inta bugta allaha caafiyo inta caruurta ka xanuunsan caruurta allaha u caafiyo inta ubad haysanina ubad kheyr qabo oo siciida allaha siiyo inta haysatana allaha u barakeeyo soomaaliya wanaaga waa inaan isfarnaa adduuniya aakhira bayna anfacaysa xumaatada iyo juujuuqda aan iska daayno soomaaliya gacmaha isqabsano aan iskaalmayno inta walaalka sheelaagta subscribe-ka u saaraysid comment qurux badan ku dhiirigelisid au soo qoraysid uu ku farxiyo intaa wax bay adigana ku taraysa maasha allah qof kasta muraadkiisa oo kheyr qaba allaha u saqaro qof kasta wuxuu jecel yahay oo kheyr ku jiro allaha u saqaro soomaaliyey sidaa iyo kulanti dambe oo xiiso badan leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu